muruqina malo dulka mira ku beero muruqina malo dulka mira ku beero macdanta dahabka muujiya wanaaga warbal iwarni Usmaan maxaad haysaa bariyahan lagu mahayo xaaladda caafimaad ka waran maxaad haysaa maxaa kugu soo cusboonaaday saaxiib niyo wallahi saaxiib horta alxamdulillah waa galad eebe waa iska fiicanna adaa lagu waayay niyo hal arina bis jirta niyo waxa waaye wasaarada iska jirta iyo shiishiid iyo dhagax noqon kids way arrin ba kala geysay ma karad wala arina kana ana kala geysay wala duruufaha horta aantaan niyo hore niyo waqtiga horta si hore ka soo adkaanaya shaqooyinkii baa la laayahay horta aniga tii shaqa ahayd baan rabaa inaan markan aado wax shiid la yiraahdo saliigu soo daay meel alla meel ka imaadan kara ma saaxiib waa shiid saliigu soo daay bal adiga dhakaaga waran xagee ku maayeen wallahi niyo isku mid aan hayno ani xitaa wax waaye magaalkii wax waa wasaaradii ay u shiid war heer waxa gaaray xitaa niyo shiidka ani yahay dartiisa in micnaha kuleelkii jirkeyga ka shidan digaag in lagu karsan karo niyo waxba lagu duban karaa waxba lagu duban karaa shiid dartiisa niyo marka wallahi saaxiib niyo horta ilaaha leena koode ana go'aan soo qaadatay ana go'aankaas xaalay dhan masaxan waa ku jirin inaa shaqo madaxa la galo waxay rabtaa saaxiib rag dhalinyarada nahay 20 jireen nahay oo xoogsanayna saaxiib haddii maanta inagoo 20 jirna xoogsan kari weyno tibri 60 jirka waxaan qabsan karaa waxa qabsanay ma lahan niyo saaxiib ayaan fadhiga ka kacnaa go dhaxda iska soo xirtay ka anta waa iga go'aanta aan maanta hadii digaag raac la yiraahdo ma aha hadii la yiraahdo samada u boodina hadda shaqo maanta ma aanoo shaqo tagaa saaxiib oo sheeka ku haya waxa maqlay meeshan magaalkan inuu nin Soomaali xafiis ka furtay oo dadka shaqo geenay dadka caawinay intaas xafiis shaqaale geen oo Soomaali xafiis fadhiya Soomaali xafiis fadhiya magaaladan maqalna malina xafiis nin Soomaali fadhiya ma maqal sax laakiin waa maqal qaar shaqada dadka geeyo ma garan shaqada dadka geeya marka waxa waaye ninkaas aniyo ana ku aqaano oo maalibid waxa la tagay ishay qof la tagay oo shaqeeyay qofkii ka arag ma uu isbi xasan faarax taqaana waan gartaa Soomaali la galay ninkaas uu tagay hada ma war fiican baad rabtaa ayaabad wadaabe mar haddii nin Soomaaliya la hayo oo xafiis fadhiya oo shaqo intu dee mid kale jarmal lacagteena naga qaadan lahayo shirkad kale naga qaadan lahayd in ka Soomaaliga wala tagnaa aan fikirkeygu noqon lahaa hadoo meel la geenayo wala si waa u cudiyaan war istaga ma soconaaniyo meel kale ma socono marka niyo kulli hada meesha ku aqaana oo isheeg telefoon iyo wax way leeyihiin waan gartaa niyo aan telefoonka waa shita bogtaa telefonkii waa qaraxsadaa waa ka ciyaaraysan xaqa kuleelka iga bataniyo kuleelka ma badan wax noo sheeg telefonkaaga saad u qaraxsataa telefoon موتي واقعتي دورت دتك اسكو ميد ما انا لا انتي صاحب كاس ما عرفت كاس انت يسمعوا شقينيسنو حتى الشقه هدا ما ادم ما كنا داني انا تليفونك waa kala kacsaday waa shitay saaxib duruufa ugu baxay ma fahanay marka kama loo shidi dalay qofti iidahay kan noo shidno halo maanta magaalada galnay waxayna isugu imanay qofti iidahay maxad kala hadashaa marka war qofti niyo xaaladaha wad ka baxday haday aragto waxa dhaha habeenii maalin waa shaqeeya xiriirkeenu wasi adkaana ma fahanay marka waa shaqeeyada habeenii maalin 4 saac shaqeeya ti adduunka inay soo galayso moodi Soomaaliya war xarifaat was bixisay صح ما قصع بحراضي هذه قال لي هذا كوي تونك واي لبي تونك iyo bar booso aad wax ah dibo la kafra laakiin waxa sameeyna boosiis marka soo laabto kadib aw tagayna bilaad farsaas balana niyo saasan yeelna diyaarni wala bixina saacad ninkaas maanta ina shaqo madax la galnaa qasab bilaad hada wasayraha baynina markaas inuu aadina inaan marka boosa ka soo laabto bilaad tawfiq أما هو كجارينا دكتور كجارينا وي أخي أحسن السلام عليكم سلام السلام حاجة عرفت تودي ما أنت هي باري أو السوجي يا سوق أوكي أيوة سيسعونا مع سلام صح هاي صعب بس مش إيه يرو ماشي راسه والله هو أنت حرامين تمان تكو صعدة شقة يا رادي وصعدنا وما لا يقدر عايا لا الله حرامين تفي فيها من كل بلده
shaqada xafiiska halka kaliya tin maanta ku sheegay u sheegi min waxba lama sheego kula meesha inta joog qof meel u sheegay meesha targetkayga si loo fahmay la fahmo wariga hatta nim kawdha la waan xafiiska shaqada socono Soomaali ma hadda u sheegi lama arag hore inaga la wada booska naga tii cididi ma rabnay naga tii ana mari ma garash soo dhawlaan ودولة مع ما تترمينا لها magacaaga ishe مقعي عبد الرحمن فرح maxaan kaa caawinaa walaal waxaa iga caawisan waxaan maqlay inay shaqada idinka balan tahay sidaas laambigeeda shalay idin soo wacay terminal ay qabateen sidaas ugu maado unta laagaag ma arki karaa aad iyo aad mahadsanid adiga ma inaad practicum badan aad meelo badan kasoo shaqaysaan inta uga jeedaa si fiican maxaad ku dooratay shaqadan yacnihii aad annaga inaad nala shaqayso shaqada waxaan ku doortay in ay tahay shaqadii aan xirfadda aan u leeyahay sidaas laambigeeda markaan arkay in booskan balan oo booska ugu habboon yahay sidaas ayaa contactiga kusoo sameeyay sidaasaan u doortay waa si fiican warqadda saan uga jeedo shuruudaha inta badan waad buuxisay si fiican waa qof furfuran oo shaqadan kasoo bixi karaa loo baahan yahay annagana macaamiisheeda mar walba waxaan joognaa inaan raali gelino si fiican oo matala shirkadda kana soo baxa hawshaas ayaa loo baahan yahay waqti yar isii oon warqadahan kaga kusii gudagalo kaga shaqeeyo sida ugu dhaqsaha badan oo kasoo wici doonaa laakiin rajo wanaagsan baan rajeynayna inay wax walba ay andameyno السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم يو سمان raali noqon walaal maxaa dhacay dadka waa sidoo يو meeshana macnaha shaqo oo yani ahaysid ama qalna marka shaqadaysana meesha suuq ma walaal albaabka meesha yaalo la soo garaacasmo ها waanu soo gargaraacnay maya albaabka waxa ku qoran Soomaali inaan caawistaa rabnaa shaqo raadin inaan dadka shaqo gismaade shaqada walaal qaab loo tagaa jirta ballan baa mid kale la qabsadaa waa la soo wacaa macaamila ay fadhida ixtiraamku waa mid koowaad moogtahay albaabka inaad sidan soo gashaa qalad way inaad naga raali hawo xoogaa shaqo la'aan baa nayra haysa kulayl haysta السلام عليكم Soomaaliga intaad ku hadlaysiin baad xoogaa soo gashay laakiin sharciyaan hadii la eego wax mamnuuc waaye waa maadsantahay waa maadsantahay naga hadla fadlan idinku maadsan banaanka ma u bixi kartiin macaamiisha markan aan dhamaysto ayaan idila hadlaya si fiican okay way anaga tan qaraa dhakan baan fadhi madaxlo بس كيت دوكان كرال النقول أدبان كاجر هالي قلنا واد أكتو si fiican ودك الصوماليين اللي تسوون كده بدأت الموقتها si fiican si fiican ودون شيء ينجون مرة بحسابنا قدر نوعي أو قال لقب سن شرعي أدبان كاجر هالي قلنا وأنا سوي عدنا سيدا وقنا صعبة إن شاء الله ما أنتوا كوسي وعنا dadkaasoo midhan badan weliba magaca Soomaaliya midka soo kale soo gala walaal soo galay kowdhe noo naga yara raali hawo xoogaa waan ku qasnay martiniga ku fadhiday cadceedda nagu kuleed xoogaa shaqaan u baahnayn niman waddankaas kaga cusubna runtii waan nahay meel alla meel aan shaqo ka galnaan weynay kuleylkaasaan hayay horta naga raali hawo soo dhawaada midda kale duuduub baad igu soo gasheen iyo qaab lama filaana midda kale markay marti joogto macaamiil aan ay fadhido si fiican ixtiraamka inaad is ixtiraamaa wanaagsan soo dhawaada maxaad socotaan maxaa horta nagala noqo mar kale waa mahadsan tahay niyo shaqo rabno waana lasoo tilmaamay wiil walaal Soomaaliyeed xaggaas joogaa leh oo shaqo geynta dadka shaqo geeyo marka sidaa darteeda saasa kugu imaanay ma fahanti saasaan soo jiidatay marka niyo meeshan niyo waa ku wareernino adina waa noo joogtaa noo saaxiibno صح وايد Soomaali
wiil Soomaaliya nahay shaqadana shirkadaha ayaan contact leenahay yani xidhiidh on dadka iyo shirkadan u dhaxayna shaqo nooceeyaad rabtiin maxaad kasoo shaqayseen yani shaqo sideen idin waxaan markaan iyo shaqaan u baahanahay oo ka walaal waa si wanaagsan wax unta laga ma ii wadiin yani shaqo nooc kasoo shaqayseen iyo shaqaan kasoo shaqeeyay walaal u kaadi adigu joker aan hay wax walba naqaanaa waa meel walba gali karnaa iyar kala hada marka mid kolba mid aan la hadlo waa saxan adiga ugu bilaabo walaal nin wadankii waa kasoo shaqeeyay meel geerish lahaa geerish lahaa wadankii marka laga soo tago walaal inta ma ka shaqaysan oo intan xayaan baan ku noqday baa shaqaba wallahi maxaan ka shaqeeyay school iyo luqad iyo waxma adili shaqa iyo waxba wallahi baa xayraan baan intan ku noqday wadankii baan geerish la ahaa geerishka waan aqaanaa si biraha loo furfuro haddii geerish geyso maanta igama dareysanayo haddii la hayadmaayo waan gartay walaal horta shaqooyinkana dadka geyno amaan hayno idin soo bandhigi karo wax geerish iyo waxyaabahaas ma lahan midda kale walaal wax warqada ay jarmalkan ama wadankana joogno gudihiisa lagu sameeyay baa loo baahan yahay ku qoran tahay inaad wax kusoo baratay ama kaga soo shaqaysay bal adigana magacaaga ii sheeg magacii waxaa la Maxamuud Jaamac adigana unta laagama wadaa mise waad isku mid un baad tihiin niyo unta laagan maxaa la horta libis suud miyaa dharka oo steel iyo waxaas certificate buu ku yidhi ها أنت لاجم حلا إلى يعني ورقات شهادوينك ورقاتها مثلاً نيو تشقى هدين تو سكول يعني ورق ضمان والله يعني شهادي سومالي حبضها كل عاد فهمت شهادي حبضها كل عادي أوكي الله نحرس مركا الله نحرس ردي كنا وحياة بنا صوبر تاني وحصوبر تسيدتك أو لو كلا مصلحة إيدتك سير سودر إيدتك سير صباحات الله سين فاهم أوكي دقات معكوت حكى لنا ولا الحرفة يعني هي مال ولي ما كسوش قيسي وموش غتكتي يعني جوكر ما سكول ما برتي أنا لفتي جوكر أنا كان جوكر أنا وحول واحد كستان نقدر تو نقبلنا ولا شاك هكور ورين تايد وحور وريا تها كموتشني ما يشاد من مدة ما ولا إن شقة كسو بحيسين إن شقة تاي شقات كسو بحي كرتين إن تاي إن عديسين سو كمان رسمة كورين ولا شقة نوبة هنا كودي شقة واحد نقطة شقة نعبان كل ده أنا مال مدح نوجري أنا واحد كوريل كان أديكي بابا ولا runta haddii aan idin sheego horta sidan qaabkan aad wax u raadinaysiin wallahi way adagtahay mana malaynaya inaad shaqo ku helaysaan anaga qaldintay la anahay anaga alxamdulillah dad laga jiraan ahay meel walba aan galno joker maanta joker meel laga helaa uu yiri joker baan wax ama jokerka ama ku dooni baa hada laakiin meel walba galaysa shuruud baa jirta loo qor qofku intuu shuruuda buuxin ma gali karo marka waan dadaalayaa intii awoodeyda karankayga waana soo wacaya sida ugu dhaqsaa badan mid kale wadanka saaw imaani laakiin waxay ugu talinayaa isku xun waa inaad cadayn aad hor dhigi kartaan qoro telefonkayga horta telefonkayga qoro ninkan telefoon ma haysto waa ku yaacay kaaga laga soo wacno diga telefoon adiga waa magacaagu waa kullu ma qoranay oo kullu ma ninkan telefoonku ii sheeg aniga magacaygu xajeeyay Ismaan Ismaan lambarkaaga laba sagaal eber hal shan lix toddoba afar shan toddoba sideed saddex good isku meel ma haddii aad xitaa Facebook ku soo darsanaa maya waan ka xumahay Facebook shirkadda kanu nagala soo waxaa muhiim ah inaad telefoonka yani agaash ba ahaataan xilliga leedin baahda yani leedin soo leedin heli karo in waqti walba leedin heli karo on soo war member waqti walba waa aniga 9 saac bidin maalintii haddaan soo 9 saac bidin talabaad walaal ku darso habeenkii xataa waan shaqayn karnaa habeenkii waa ka iloon afar ilaa 9 saac shaqaalo waa loo baahan yahay laakiin muhiimadu shuruudda inaad buuxiyaan wayaan bal waad ii raadinayaa waxaad qaban kartaan oo xoogaa idinku shahaadaniyo ma hayno oo waxa waaye shahaado aniga markaa waddanka imaaday niyo iskuul oo sidii loo cadaystay iyo la soo baray bis iyo sidii sheeg oo ma dukaamada wax lagu gato bis aniga hadda Soomaali baan ahay waan ka qaadanaya walaal caday iyo joker iyo waxaas aniga laakiin dad baa iga sii sareeya shirkad baan idin gudbinaya oo u shaqaynaysiin waxa سو كل مجال مدن عند أباك يعني سنة كم وضع شقين كان
laakiin waa idin dadaalaya inta karaanka soo wacaysa xeeraamin baan laakiin waxaad ku dadaashaan ugu yaraan inaad luqada wadanka aad ka baratiin ood iska wala aadin sababta waa furaha ugu horeeya wadanka insha allah insha allah moogtaa anigana waa idin dadaalaya shanfarood marka dambana insha allah soo wacalanta ama gurigaa soo insha allah saaxiib aad baan waqti badan anigana macaamiil badan bay joogtay waan salaamaya insha sidoo allah kale saaxiib maalin wanaagsan واي اوكي تشوز ياب والله بالله اد بان الله يابني horta waxyaabahan oo kale aad baan ugu xumaynaa in badan ugu soo noqdaan midda kale Soomaalida inta badan dalkayga ka yimid waa dib wallahi wada haysta dad aan luqadii aadi karin wadankii tagi karin ya ugu yaraan luqadda la iska bartaana wadan si ay meesha u soo galaan markaa bal waan kuwa horta shaqay wallahi ma maleynaya xataa 5 sano dambe soo socotay inay xataa halka ka shaqo gali karaan sababtoo amaba ah shuruudaha aan u baahnay mid ay buuxin karaan waan wacayaaba laakiin waan u sheegaya wax fursada inaynan hadda ay jirin oo ragaa ku shaqo geliyo laakiin wallahi shaad aad baan uga xumahay ay magacayaga dad matalaya sidaas dadka ajaanibta waxay nagu sheegayaan waa runka in ay dadaalaan baan rajeynayaa dhalinyarta Soomaalida dad bay u baahan jireen magaalada. Maybe it's 3 a.m. Had you on my mind. It's the first time we've gone through this.